wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ee maanta soo gaaray degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wafdiga ayaa waxaa degmada Baraawe ku soo dhaweeyay maamulka degmada, saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa AMISOM, xubno ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo gudoomiyaha gobolka. wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kormeer ku tagay dhismaha garoonka degmada Baraawe oo muddooyinkii dambe hakad ku jiray, iyagoo sheegay in dhismaha garoonka uu muhiim u yahay dadka degan degmada Baraawe iyo nawaaxigiisa. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku soo dhaweeyay degmada Baraawe, isagoo sheegay in maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu shaqo badan ka qabtay caasimadda Koonfur Galbeed ee degmada Baraawe. waxaan kaloo rabaa inaan kaaga mahadceliyo soo dhaweyn kadib shaqada halka ka socotay elboorkan muddadii yareed hakadka ay ku jirtay kaalintii adiga ka qaadatay xiriiradii faraha badnaa nala soo sameysay awaamirtaada si dhab ayaan u fulinay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa. waxaan rajaynayaa insha Allah taala safarkaaga kan xigi doona elboorkan inaad adiga xariga ka jari doontid magaciisana aan ka dhigi doono elboorkan insha Allah taala Shariif Xasan Sheekh. wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha iyo gaadiidka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay sheegeen in dhismaha garoonka degmada Baraawe la dardargelin doono. waa dareemi kartaan marxaladda laga soo maray ee boorkan iyo dardargelinteedii iyo sanadaha badan la soo dardargeliyay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo in muddo ah ku qaatay in maanta ee boorkan meesha uu marayo uu soo gaarsiiyay. aeroboorkan waa aeroboorkii saddexaad oo laba ka mid ah dhagax dhigtay kan aan wakiilkaaga ahayn gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka amniga oo ila socday oo halkan aan dhagax dhignay bishii November. maantana aad indhahaaga ku aragtido geeskiisa taagan tahay oo muuqda dhul bannaan oo sawirkiisa maanta la dhihi karo waa aeroboor bilow ah. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa u mahadceliyay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose kan degmada Baraawe iyo bulshada ku dhaqan caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoo tilmaamay in Baraawe loo dhisi doono deked dhismaha aeroboorkana waqti dhow la dhameyn doono. aniga waxa ugu horeysay anigoo aeroboorkan arrintiis ka fikiraa inaan Baraawe ku soo dego 20kii December 2014 saddex sano iyo bilaa ka soo wareegeen aeroboorkaas intaasaan daba joognaa. maalin ilaahay keeno aeroboorkaas waqtigeena ka mid ah aanan gelin ma jirto. ilaahay noo suurto geliyay maanta in aeroboorkii ay ku jiraan makiinado in aeroboorkii la dhiso la rabo. runtii waa riyo anaga aan sugaynay oo muddo dheer ku riyoonaynay. haddii ilaahay cimrigeena gaarsiiyo riyadaasina ilaahay noo furo aad iyo aadaan ilaahay uga baryeynaa. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa inta uu ku sugan yahay degmada Baraawe waxa uu la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Baraawe. Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka, caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya, degmada Baraawe.